laandheero banaanka ku dhacay maadaama aan naqday oo banaankan ku soo dhacay cilada ummadan aan ku soo dhaweynay saacadihii ugu dambeeyay waxa warbaahinta Itoobiya qabsaday sawirka ninkan idin muuqda oo ah wiil Soomaaliyeed oo magaciisu yahay Taliya Laandheere kaas oo mucaaradka Itoobiya ay ku sheegayaan inuu yahay askari Eritrean ah oo lagu qabtay dagaal ka dhacay gobolka Oromada ma saxba warkan maxaasa ka runayn Taliya Laandheere uu gacanta u gala mucaaradka Itoobiya ma yahay Taliya Laandheerihii aad garanaysay mise waa nin u muuqaaleg ku soo dhawaada warbixin ku aadan dhabaashiyaha sheekadan balse daawada marka hore muuqaalkan like saaro share gare si dadku ay u ogaadaan xaqiiqada arrintan iyo waxa ka jira saacadihii ugu dambeeyay waxa warbaahinta Itoobiya qabsaday sawirka idin muuqda oo ah wiil Soomaaliyeed oo magaciisu yahay Taliya Laandheere kaas oo mucaaradka Itoobiya ay ku sheegeen inuu yahay askari Eritrean ah oo lagu qabtay dagaal ka dhacay gobolka Oromada ninkan oo caan ku ah magaca Taliya Laandheere ayaa maanta haystay warbaahinta Itoobiya gaar ahaan Facebook waxayna mucaaradka Itoobiya ku tilmaameen inuu yahay askari Eritrean oo lagu qabtay dagaal ka dhacay gudaha Itoobiya warbaahinadka Itoobiya ayaa qoraya dagaal ka dhacay gobolka Oromada gudihiisa ayaan ku qabanay askarigan Eritrean-ka ah oo lagu magacaabo Sisay ninka ay tilmaamayaan inuu yahay askari Eritrean oo dagaalka lagu qabtana waa Muuse Laandheere oo ah nin caan ka ah gudaha Muqdisho dadka Itoobiyaanka ah ee isticmaala baraha bulshada ayaa sidoo kale aad u faafiyay warbixintan mucaaradka Itoobiya ninkan ay soo bandhigeen lagama garanayo gudaha Itoobiya taa oo sahashay inay rumaystaan iyadoo baraha bulshada aad loogu wadaagay muwaadiniinta Itoobiyaanka ayaana rumaysta warkan iyagoo baraha bulshada ku wadaagaya Soomaalida dhexdeeda ayaa sidoo kale warbixintan aad loo wadaagay iyadoo laga yaaban yahay beenta inta la eg ee mucaaradka Itoobiya ay cunsiyeen shacabka dalka Itoobiya dadka isticmaala social media ayaa arrintan aragtiyo kala duwan ka bixiyay iyagoo ku maasanaya beenta inta la eg ee warbaahinta Itoobiya la wadado qof kamid ah dadka baraha bulshada isticmaala ee isagu arrintan ka hadla ayaa soo qoray beenta mucaaradka Soomaaliya ay hooyooyinka Soomaaliyeed kaga ooyinayaan waxay la mid tahay midan mucaaradka Itoobiya ee leh waxaan deegaanka Oromada gudihiisa dagaal ku qabsanay askari Eritrean ah oo lagu magacaabo Sisay hadda sawirka askariga ay sheegayaan waa Taliya Laandheere oo jooga Muqdisho iyo xeebta Liida ayuu yiri qofkaas haddaba xaqiiqada warkan ayaa ah mid been abuura iyadoo warbaahinta Itoobiya iska qaadata sawirka Soomaalida iyo Eritrean-ka waa dad isku face sida daraadeed ayay mucaaradka Itoobiya u soo qaateen sawirka Taliya Laandheere waliba muuqaalka Taliya Laandheere wuxuu aad u shabahaa dadka Eritrean-ka ah maadaama timihiisu ay yihiin kuwa raama ah oo aad u dheer isla markaana adag sheekadan ayaa aad loogu wadaagay warbaahinta baraha bulshada iyadoo hadda la sugayo inuu ka soo hadlo Taliya Laandheere oo isagu ah ninka sawirkiisa la isticmaalay ee lagu sheegay inuu yahay askari Eritrean ah oo lagu qabto gobolka Oromiya isagoo dagaal kaga jira